السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada qiimiga iyo qadarinta mudan aad baan idin salaamaya meel kasto daafa caalamka aad ka joogtaan. soo dhawaada saaxiibayaal, halkan idin muuqato waa xaafad Islii, waa shantaraalaha Jam Street. dabaqa idin muuqda magaciisa waa Al-Xijaaz. wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo 10 biyaano, 13 biyaano ilaa 14 biyaano ilaa 15 biyaano suurtagal tahay. qaybta ugu sareysana waxa saaran gabar Soomaaliyeed. da'deeda aan ku qiyaasay 20 hadaysan ka yareenba 18 17 sida ay tahayne waxay door biday nolosha ay ku jirto intay ku noolaan lahayd inay nafta isdhaafsiiso. wararku qaar waxay sheegayaan in tira ku laba jeer ah horay ay rabtay in ay isku disho, laakiin ay u suurtageli weyday. gabadhan waxaa laga keenay magaalada Burca. hooyadeed ayaana keentay halkan idin muuqato. waxay u keentay qaar ka mid ah qaraabadeeda inay halkan kula noolaato, laakiin isfahan waa dhex maray. gabadhan da'da yar iyo hooyadeed ayay go'aansatay inay dabaq iska soo tuurto. xog ku saabsan muuqaalkan iyo dhibanaha dhalinyarada qarsoon ee ku nool Nairobi ayaan idinla wadaagi doonaa. guud ahaan intaas muuqaalka u guda galin, hadaysa tahay booqashadaadii ugu horeysay, waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanayaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan. sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka noo la gareysaan, share-tan aad nagu dartaan si muuqaalkeena uu u gaaro saaxiibo badan. intaan muuqaalka u guda galin, runtii waxaan rabaa halkan mahadcelin ballaaran inaan hawada u mariyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee channelkan maanta heerka uu gaarsiiyay. runtii waad idaweysiin xaqiiqa. muuqaalka ka horeeyay cabasho iyo codsi baaxad leh ayaan hawada idin soo mariyay, aniga oo idinku og wanaaga aan idin kala kulmay. maanta ilaa xalay ilaa saacadan waxaan dareemayaa inaanu kaliga ahayn. waliba channelkan uusan ahayn mid kali ah, laakiin idinka aad garab taagantihiin. xaqiiqa qalbigeyga waxaad ka dhisateen daaro jacayl ah. xaqiiqa channelkan markii aan idin cabasho hawada idin soo mariyay, runtii dhulka ayaad ka qaadeen. waad idaweysiin, waad ishifayseen. abaalkiina runtii qalbiga ayaan idinku hayn doonaa. ilaahay waxaan ka baryaa qof kasta oo runtii cabashadayda falcelin ka sameeyay inuu ilaahay jannatul firdaws al-a'la ugu bishaareeyo. saaxiibayaal, runtii farxadda aan dareemayo waxa hoos nuqsaan u dhigay gabadhan dhibaatada maanta qabsatay. mooyaane runtii waqti badan ayaan idin mahadcelin lahaa. qalbiga ayaan wanaagin idinku hayaa. dhalinyarada runtii sida xagarla'ida ah inoogu soo biireysana waxaan leenahay saaxiibayaal ku soo dhawaada walaalihiina. waan idinkaga mahadcelinayaa subscribe-ka aad ina siiseen. waan idinkaga mahadcelinayaa commentiyada laab qabuujiska ah ee aad ii soo qorteen. waan idinkaga mahadcelinayaa sida codsiga aad u tixgeliseen ee aad muuqaalka igu laagareyseen, share-tana aad igu darteen. qalbiga idinka ogsoon. aad baad u mahadsantihiin. halkaa kasii wada. haddana muuqaalka inoo qurxiyo, laagta inagu sharfa. waxba kaama dhibayso. anigana qalbiga ayay ii adkeynaysaa, oo qalbiga ayay ii kaawadeynaysaa, oo kalsooni ayaan kasii helayaa, dhiirigelin ayaan kasii helayaa. dadaalkan halkan ayaan kasii badin doonaa. aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal. haddaad nagu cusubtihiin subscribe-kana siiya. haddii aad nala sii joogtayna muuqaalka noo qurxiyo, laagta iyo share-ta iyo commentigaba idinka ayaan idinkaga fadhinaa. aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal. halkan waa xaafad Islii, waa shantaraalaha Jam Street. gurigan idin muuqda waxaa la yiraahdaa Al-Xijaaz. dhowr iyo 10 biyaano ayuu ka kooban yahay. qiyaastii ilaa 14 uu gaarayaa saan rajeynayo. haddana fikta ugu sareyso waxaa saaran gabar yar. 20 waxaan isleeyahay gabadhan maba gaarinba, waa ka yartahay. waxaa la sheegay in laga keenay magaalada Burco. hooyadeedna ee ku nooshahay dalka Jarmalka. halkaana ay u keentay qaar ka mid ah ehelkeeda inay kula noolaato. laakiin gabadhii iyo hooyadii iyo kulli dadkii isa noolaayeen ayaa isfahan darro ku timid. gabadhii kadib waxay go'aansatay inta dhibka markaas qalbigeeda taabtay, wuxuu ahaadaba hadduu xanuun yahay iyo hadduu yahay dhibaato la baday adduun. waayo Nairobi dhalinyarada waa ku ciilan yihiin. dulmanaha qarsoon haddii aad maqli jirtay runtii Nairobi ay ka taagan tahay.
maanta dhalinyaro badan ayaa ku ciishan oo dhibaato culus ay ku haysataa. gabadhan waxaa la sheegay tiro ku 2 jeer ah inay hamiday inay istisho. hadda waxaad aragtaan dabaqaas inay saaran tahay, weliba ay rabto inay iska soo tuurto. halis ayay ku jirtaa, dabeesha ayaaba halis ah inay rido. dadku qaar ee gabadhan la kulmay ee wadada marayeen wax ka qalbi adag weligii ma arkin, kana naxariis daran. waxaan arkay qaar muuqaalka duubaya welibana leh war waan daahnay, meel ayaan ka daahsannahay, dabaqa iska soo tuur si ay sheekadu u dhammaato. naxariis darrada heerkaas ayay qaar ka mid a dadkeena weliba dhalinyarada ay ka maraysaa. bal ka waran gabadhaas waa uu ka fogaa, waayo waxay tahay qofka dhulka joogo way adag tahay inuu maqlo qofka dabaqa ugu sarreeya saaran. laakiin gabadhaas hadalkaas haddii dhibteeda uu ku dhibci lahaa waxaa halis u ahaa lahayd inay halkaas ka soo tuurto. walow ay jireen dhalinyaro badan oo ugu dambeyn badbaadiyay, bal aan idinla wadaaga marka hore qofka muuqaalkaas duubay ee naxariista daran ee gabadha ku leh dabaqa iska soo tuur. muuqaalkaas aan isla daawano. walaal waqtigan ugu socday dhaqsi soo tuur. dhaqsi soo tuur dawad. naxariis darrada maanta waxay naga maraysaa gabar yar oo Soomaaliyeed oo damacday nafteeda inay halkaasi ku goyso. bal qofka muuqaalka ka duubaya haddana leh isdil, waqtiga ayaa inagu socday. naxariistii qaar annaga inaga mid ah sida ay u gurtay oo qalbigii ayaa daxalaystay. naxariistii waa ay dhamaatay, laakiin ugu dambeyn gabadhii horta waa la badbaadiyay oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyn Ilaahay u bixiyay oo teedii ayaa wax ka harsanaa. waxaan kaloo idin hayaa gabadhan damacday in nafta iska qaado hooyadeed oo ka soo warantay qaabkii wax u dhaceen. bal muuqaalka aan isaga keen dhexbaxay aan isla daawano. way ga dhabinanta anigu xamday xaalad serious baan arkaa arrintani. waa serious maxaa serious anigu geeri baa inoo ayda maanta dad baan garana kulli inta way ga dhimatay. anigu warba kuu sheegaa waagu markuu sidaa u bariyo qofka kuu haya ama qofka ugu muhiimsan agtaada qofkii hay kaba wareegtay imika walaal khalaas ma kale tagta hadda qof kale aad garanayso in ma la joogtaa. alla qofna lama joogta imika meel bay joogtaa hadda, laakiin anigu waxaan isleeyahay bal imika waxaan sameeyay waa haddaad burco ku celiso ilaa midi gaadhiso dhigta ka waran. burco dadka joogaysa ma fahmayaan meesha kuma bixin kara bacdowgeeda ku badan walaal. hargeysa maad geyn marka. wallahi hargeysna walaal ma rabta, laakiin bal wuxuu baan sameeyay imika tilaa ka dhigo. damay horta imika arrintani dhakhtar bay u baahan tahay, dhakhtar la hadlaa. inantan imika waxay walaashay mar habeenan hadalkeedii inantii ka daba hadashay waxay tiri qof hadalka ka soo saara, qof bili aadan hadalka ma soo saari kara. dhakhtar bay u baahan tahay. sixirka dhageyso anu sixirka haynanta sixir baa loo soo qabta. dee maxamed waxaa jira hargeysa wadaad cajiib oo la yidhaahdo sheekh maxamed, waxaa la yidhahdaa sheekh maxamed waxaa la yidhahdaa maxamed ismaaciil. شيخ محمد إسماعيل بقى ولا على yes ها وشيخ وناسي sheekh wanaagsan hargeysu xamday degan yahay ina yaro beri dhaweedan dhoofay baan igaalkiis qofka hadu 17 jir yahay hormoon isbedelaya ma hormoonadu way dhaafeen inanta walaaramay hormoodkuna way wadan kartaa inta ha teenager way gabadh laba ciyaal laba ahaa in adeer walaaramay way noqon isbedeli karaan ha dadku xamday isku mid maaha walaalo ha isbedeli karaan hormoonadii way isbedel ilaa 20 hormoonadu way isbedelan karaan ilaa 25 dhagaystaanadii warramay inanta sida kale inuu fiican oo gaariga maskaxdiisa ma fadhiisato hormoonku way isbedel horta ma adigu inantaad ma ku jiro hooyo maxaa dareemaysaa dhagaystaan ku warramay horta inanta waa inaan naxariis badan way fiicantahay way wanaagsantahay hal cilad bay qabtaa inanta waa lagu diro lagu inanta waan ilmaha ubadkayga ugu jeclaaday ahayd ma fahanti alla Soomaaliya dadka joogay ilaahay idinka bariyay inantii hadday imika aragtaa anigoo iyada ila hadlaysa inanteeda ila joogta hadday aragtaa loo dhunkanaya oo hooyo kule dhac aniga ima dhukanaysid waa meeltaada jeceshahay oo ilaa aniga imama jecelid oo hooyo macaan inanta yar hadday ma haysto waa ilmo yar ilaa naftayga ka jirtee adigu ma dhukanaya waan ku jecelahay maxaa jira hadda waaba intaa naftu waa ka dhacaysa de marka inanta wixii ay kugu direen bay stress ka qaato waxa ku dhacay cilmi nafsi baa u xanuunsatay de markaas waxba ku dhacay inanta xanuun nafsiyana saas u xanuunsatay midda kale dhibaato kalena way haysaayo waxay soo bandhigtay horta inantan way aaba jeceshaan ku warrameen dhib baa horta haysata inantan ma fahanti
ninkan dhalay aabaheeda inanta yar aad buu jeceshay dabeedna inantan horta waxa ku waalatay markii aabaheed u tegay inantan yar waxa ku waalatay hooyo hadda adiga aabaha isku noqotaan ka waran aniga aabaha iyo hooyada isku faraxsanaan hadii imaato hooyo yani midowno isku noqda bala waxaan ku hooyo waxaan isku noqon aniga aabaha iskaga ka xiran ma jiro may noloshayda burburaysa oo nolosha ka burburaysa maxay tahay gabadh inta leeg baatay maanta maxad aabaha ugu baahan way wada burburtaa xanuunay qaadaan carruur wadamada joogaan aba sanad jira banu kala tagnaybe sanad baanu ku buuxinay ma sanad bay jirtay kala beed kala tagnaa ma wallahi sanad way ka yaraday because uurka isku nuug baa ku qaadan labada carruura waxaan ku ori maxaa iskaga ka xiran inantiisi waxa ku waalanaysaa aabo qofka daano abihi korsan qofka daano abihi gacan qaban qofka daano abihi sidan oran habeen iyo maalintaas waxa ku maqantay muruga aabaheeda de markaas asaga ku xanuunsatay horta inanta xanuun baa hayad isaga markaa wuxuu dhihi weyday kadabko isagaa buu tegay walaano ma garanay isagu markuu tegay bay inantii rasan iga noqotayba abay fiiri ma xir ma kula hadli karaa anaa gabar saa iga noqotay horta ilmaha markay jir meeqa jir waa gabadhaas waxaan u maleynayaa inay 16 jir 15 gabadha 17 bay jirtaa walaa 2007 bay dhalatay 17 bay jirtaa anigu waxaan leeyahay gabar maxay tahay markaa wuu igu diray inanta markaas isbedeshay marhaba waxaan xamdi abay kula hadlay tala yar baan siinayaa gabar baan aniga qurbahan ka tagay ciyaar baan qurbaha kala noqday Nairobi baan la tagay gabar waxay igu jirtay 16 jir ilmaha markaanay maartay ama meel bay ad kala tagaan ama waxyaabo ku dhacaaneen hormoonkooda wuu isbedelaa maskaxiyana way noqdaaneen gabadheed ma sha Allah soo u fiicnayd hal mar bay isbedeshay waxay bilowday inay dagaalanto waxyaabo badan aanan maxay tahay aan ku aqoon baan arkay markii dambeeto waxaan arkay gabadhii ilmeynaysa hadda gabadhaada markaan arkay aad baan u ooyay wallahi because gabadheeda yartaa waan soo xasuustay waxyaabihii helay kowdhe dabadeedna waan wareystay marka waan la fadhiistay waxay ii sheegtay bisha markay intaa tahay inay qorshaysatay inay istisho waan baay kowdhe bas isla markiiba waxaan sameeyay marka quraanka horta waa muhiim quraanka waa saaraysa laakiin markiiba dhakhtar baan la xiriiriyay hadda ma sha Allah way fiican tahay marka baay kala waxaan dhakhtar cilmi nafsiyana gabadha wuu wareysanay horta dhakhtarka waxyaabaha marka waxay qaaday qurbahan ay ku kortay kuma aysan dhalan markii waan celiyay waxay sidii markii meeshii bay la qabsan weyday waxyaabada cunug moogta qofka bini aadanka ma aragtay ilmahana markay korayaan ma aragtay hormoonadooda isbedela waxa way inagu Soomaali ahaan horta ma fahano inuu laakiin waxyaabo badan baa ku dhaca ilmaha markay teenagerka yihiin marka waxa fiican baay waxaan ku dhihi lahaa dhakhtarka oo la xiriirsi labo very close oo inuu ku noqoto aad waa inuu ugu dhawaato haye baro aad waa inuu gabadhaada ugu dhawaato dhakhtarna gabadhaada waa inaa la xiriiriso quraanna waa inaa saarsato adigana waa yani Nairobi ka helaya waa ka helaysaa Nairobi ka helaysaa way buuxan meel aan joogin ma lahayn dhakhtar waliba waxaan ka helaysaa gabar aniga Hindiyan u geyn jiray oo muslima way caawisay been ma ku sheegay marka baa gabadha yarta caawimaad bay u baahan tahay waa dhakhtarka la midismaadii qorin dawala hay English bay inantaadu taqaan qurbaha ta ka noqoto kula hadlaysa Hindiyada Soomaaliya iyada xataa aniga imaysan ogolaan inaan gudaha la galo iyada dhanba waxay soo dhamaysan jirtay laakiin markii mato ii furfurantay ay Soomaali bay ka helaysaa Soomaali badan oo Soomaali baa helaysaa joogta Nairobi Soomaali baa xataa helaysaa dhib ma laha dhakhtar Soomaali afkeeda kula helaysaa muxuu ku yiri midada labaatan ku sinay muxuu ku yiri maxaa samaysay maxaa yeeshay waxyaabahaas oo dhan hadhiin waxba hadin afaar internetna gudaha u gasho ha samaynin laakiin mar walba waxa samaynaysa sidaada kale inay ugu dhawaato naxariis badan inaad tusto yani ilmo wali ma ogtahay marka abaayo inta kale horta waxa ugu horeeya samaynaysa dhakhtar la xiriir adigana waxa daad la joogin xataa waxa isku daydaa inaa u tagto yani waxa weeye abay wallahi anigu waan arkay way soo martay laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin way fiican tahay hadda bayada chance ku tahay waxay muqabat ka xasanantaas anigu tayada qurbahan ka kaxeeyay markaan qurbaha ka kaxeeyay iskuul marka maanagay quraankii waxaas inay bartaan baa rabaa xoog waxa saaray macallimiin badan oo qabtay quraanaan maxay dhigan jireen cunugtii waxaan arkay gebigeedaba istuuf noqotay oo annagii aan arki karin oo ooynaysa oo dulqaad aan lahayn oo marka waan yaabay markii hore tada iska garanaysaa waalid baan ku qaylin jiray naayadab yeelo markii dambe waxaan arkay gabadhii serious noqotay bas markii dambe waan wareystay waan la hadlay markaan la hadlay way ii sheekay marka xitaa aniga waxaan go'aansaday inaan ba iska tago waayo halkan xal jooga maxaan qabanayaa maba haystaba
dabadeedna de markaas waan ku baraarugay markiiba isla markiiba automatically go-aan waxaan qaatay inaan dhakhtar la xiriiriyo markiiba dhakhtar baan la xiriiriyay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin yacni sidii aan markii hore ahaan jiro de ilmo normal ula dhaqmayay markii dambena waxaan sameeyey inaan aada ugu dhawaado aada ula sheekeeyo xataa anoo de maaragtay maama iska ahay aan la boodbooda xataa marmarka qaarkood waxalla waxay jeceshahay abay u samey dhakhtarna la xiriiri quraan na saarso ilmaha waana runay haddii qofna uu sheekeeyo qofna uu sheekeysaan maogtay yacni wixii waa ilmo maogtay adaaba soo korsada aniga inantan ma korsan iyadoo beebi 6 sano jirta ay ugu dambeysay ها بروبلم كلكم كي إيمان لكن هذا ساسي تا أنت حوج ساري كرتدا وحقوق بنك كرتدينا هنا ما عرفت وبرسل لي النبي أنا بري أنت صنقولة تلا باي إن شاء الله إلى هاي ربك أنا هكون عافية ويا عافمات قبتنا أنت يلا أنت ولا دري بلاي لو قدح شرت عدو ولا قدح شرين أنت هذا باي عافمات كوي عافمات قلت لكن قبل يرفع فيديو قبل أعرف ما عدم كركي سكرتي نعم ده كده تقول لي روح توجع ما بدحانه ما يا وحيلي مقولش يا جا بس صار ما يا دقيقة خدخصو maxaad qabanaysaa dad saatur waa lagu raagtay naasi saatur wala duubaya Allah adiga hooya ma ogtahay cunug qofku markuu dhimanayo ilaahay baa uu qoray laakiin haddana ma hadda kugu noqonaysaa waxaan ma ogtahay marka ilaahay rabbiga subxaanahu qaadirka ilaahay kula garan qabto laakiin abay cunug halka dabaqa korkiisa kortay oo damacday istisho wax yar hay yani waxaan ka wada hayaraysanin waxaan hayaraysanay ruuxay dhigayso midda kale waa markii labaad halka kortay imika هذا باي قبر ويحن وصلتها حبيبتي واحد اسكت داي دختر إنا ما أنت مدة دار ساق عادتي مدة دار أنت ساق عادتي تبت مكان سفلمات نقول وجري أي هالكار نقول تسكيك قبضة تشلع ده صدق الله يقص صوته مثال لا يصدره وبتكوى تنوايا الميل لبع ومركي لبعض عنو كوما قالوا مركي لا يصدره ما أنت عارف كوما قال أنت مدة لا قبر ضدك هاي لا تشوفت أمي على سكوهيان ما الله حريدا وفري باور كارد ضدك على سكوي ما ضدك لا تشوفه بانك ولا ضدك عمل فاميل كمان شو تشوفه أمي على سكوهيان ولا عليه هنا نسكور كوسو كورين بانو كنا حق هو يك ولا عليه هنا كلابين بانو كنا ويسكمل تشوفان ولا عليه المهير معها يعني هندق يا قيامة أنا اسمع كلامك هو حربنا تعال نسكي عليه بلتا أبيت كل عليه ما قرأتي هذا بيننا أنت ندير بتبادو باهنتهاي تهنا بلنتن كل جد بجروك ما يباي جوادني أرين سيريس يكون شرطة والله ما حرية بيرتا قبل دايرة والله صعته ونعلنا يعني ودك مسكين علنا يلا صح هذا سماها جوري بنو كرينيا كل جدا قولي فردية وحلا يبلغوا هالك كل راح يسوق وحيب بهانت بنودي جاية بيل كذا قعدت كسارية بل هالك تشوك هذا دون يصير عرق كمل وجسنت هذول عاد صبح يكسر نقاط هذا دربت هذا اختيارك اسكله لو ما دخترك يعني هذا adiga waxa uu fiirinaysa sidii qof maaragtay caadi ah waa dhakhtarkan waa geey laakiin way meel yeeba oran waa balay marka hore waxa isku dayda ina gabar dhakhtar waa haya soo inta ma cabanayso leemal waa la maagaya ma xalaaqayso may adiga wax kasta waxa dhaysa okay wax kasta waa ku soo binaaya wax kasta waa ma soo binaya waa la soo binaya guri kaligeedan u qreynaya waxa siinaya nolol friya lacagteeda iyadan qof wuute uga soo qaadan Nairobi ayaan ugu qoray wax la farta ka saara cunucaba halka chief oo joog bal safaaradaadii maalinta hawshaada tagaysina deebal hooyo iska tag meel walaan hay la wax kana sameeyay ma jirtee ma adiga waa ka soo maqanaysa ma isku day kartaa inaa u tagto yani ma wadaniga baba baqayay qof midis daad midida gelisaga waraniga lagu sarxayba hadday walaalayna tir waxba loo qabtaan u maleynaa waa lagu sarxay qof midis daad midid chaqus saga wana bacruta midiga geliso aniga baba baqayaba أنا حاولنا والله ضدك أكو حمانا أنا ترى أرمي كاسر حين ما شمبرنا ها هذا أنت ولا القرآن نبي يوسف على الصلاة والسلام نبي يوسف العيلة قرده ما حصلته وجاء أبيها ذو شحلا ولا ما صيري إنان تيدا waxay ahayd tanubad kayga ugu jeclaabeen aad baan inanteedan curado laba jeclaa ma garatay ilaahay baan ka bari jirin ilaahay inaan curado siiyo inanteedan magacan ay sidato iyadoon anigoo 10 sano jiraan magacana caashaqay hadayna yar ciyaaranahay ma fahantay inanteeda markay dhalatay adduunka maalintii ku farxada badneed bahayd aad baan inanteeda u jeclaa inanteedan dabadna waxa loo ogaaday inaan jeclay inanta rakaata layga dhigay inanteedan jarmal ku dhalay iyo inanteeda aba cadowgaygu wala inanteeda labadeeda hablood baa layga damaaciyay tanna wala tii jarmalku iga damaaciyay yaabay taasna sida inanteedana kale inay roof fiican oo qalbi fiican oo naxariis badan oo gaaliya oo karti badan inanteeda curad yaani markaan inanteeda curad qalbigeeda xasuusto qalbigii hooyadeed baan xasuustaa noola ka naxariis badan oo ka fariisan oo ka karti badan oo ka dhiig badan inanteeda curad ma jiro
يعني أنا هو بس ده فرني مديد لا هو إذا بيسوي كرسي إنتي مركي هو إذا إنه ولد إنتي دبعت من قبيل عادي ما نسكوه هاي سكت تعطي وحنا عقلانك إياه ما ياخذ صوت أصلا ساعة هو يفاس عبها كل بعد عايش ساعة هooyo markay baxday ma reerkoodii waa u geysay mise reer abtigii baxay reerkoodii ma geynay ama soo qof cadow baa inta qurbaha uga dhoofay anigu waan yaabanahay inaan ku dambaabaan rabin inta ninka dhalay baan waxba ma qarqarin kara ninka dhalay baan u hanjabay intaan isleena marka hooyada dhimatay waxaan ku wari ilmahayga dibna uma arkaysid baan ku wari mana soo sheegan kartid maalinta ubadkayga soo sheeganaysa baan ku waa maalin sharciga jarmalka soo marisid dheere igu imanaysid baan ku wari ilmaha ma baad dhalin fatay baan ismaagnimo isku aflagaadona dadku waxa la iska dhaacay ayaan xanaaq waxaan ku wari ilmahan ma baad dhalin amaan buuxaysi ilmahayga dib ma ma qurbuhina la jooga marka wiilkaasi ninkii wuu dhoofay wuu cararay wadankii buu tagay inantayda inankiiba magu arag baa la dhahay inanta inankii wuu arkay laakiin inantan baa waxa laga furfuri waayay hooyadaa baad u egtahay waxaa tiri yacni inantiiba maalintii ninkaas dhoofay sidii inantaydii qalbigeeda uu soo bedelay inantaydi way iga bedelan tahay masiiba lagu rid ma inanta way aaba jecesha balaayo kusoo akhriyey mayuuba iga soo sirxaday dee maba garan kara wuxuu kusoo sameeyey maalintiiba inantayda isbedeshay waxbay la soo baxday fil aabba ah laga yaabee oo hadan hadda isaga u dhawaatay abaa problem ma leh asaga hadda u dhawaatay xataa ma yani waxna ma dhawaan hadda u dhawaatay iskuma fiicna meega soo fiicanba inanta waxba loo inanta maxba kara inanta waa la sirxay gabadhu waa ilmiya ama naag bale walaalihiin cadowgayga ama bilayga sixirto eedadeeda bilayga sixirto inantana xamday quraan bay u baahan tahay dadka cadowgaagaaba inanta loogama hooseeyo daawadayaal ugu dambeyn waan filayaa muuqaalka hooyada inaad si wacan u daawateen haddaba maxay kula muuqataa hooyadan sidaan gabadheeda ula hadlayso maxaad ku tilmaami lahayd gabadheedii ayaa waxay damacday inay nafta iska goyso waliba muuqaalo laga duubay halka ay saaran tahay wallaahi qof damiir damqada leh naxariis ay ku jirto ba uu gariirayaa muuqaalka inuu toos u daawado xaqiiqa muuqaalada qaar idinla moodaayi kari oo shuruucda u taala youtube-ka ayaa iga xanibayso inaan toos weji ka weji idinkula wadaago waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed maanta waliba da'yar dhibano u ah qaar ka mid ah ehelkooda waalidiintooda iyo walaalahooda Nairobi haddaad maqli jirtay waa qaraabo goys maanta way ku muuqataa hora loo yiri darbi Kenya iyo dad Kenya midna lama dukaashado Soomaalidu been kuma mahmaahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa inta dhibano ah dadka ehelka ee la nool yihiin inuu ilaahay dhibaatada ka qaado waa ku maasantiin daawashada muuqaalkan saaxiibayaal halkaas ayaan kusoo afmeeraya haddii sita booqashadaada ugu horeysay mar kale iyo mar xiga waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka noo qurxisaan oo aad noo laagaraysaan oo sharta noogu dartaan si muuqaalka inuu gaaro saaxiib adigoo kale qalbi wanaagsan muuqaalkan mid lamid ah inta kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالي نبات صومالي نبات